sanadkii labaad ee carwada buugaagta Muqdisho ilaa 2,000 qof ayaa ka soo qayb galay qorayaasha Soomaaliyeed ilaa 32 dalka gudihiisa mandaqada bariga Afrika iyo caalamka kalaba aan ka martaqaadnay rag iyo dumar dhalinyaro iyo dhaxaad iyo in kala leh buugaag ay qoreen Soomaali oo lagu qoray af Soomaali af Carabi af Ingiriisi af Boorna way yeelan sanadkan insha Allah. Well, it's wonderful to be here in Hamara, as other people know it, Mogadishu. It's quite an experience to see thousands of young people between 90% of which are under the age of 21. I have not encountered this type of attendance in the West. waxaan halka maanta ku soo bandhigayaa sida u jeedtaan buukan oo ah sooyaalkii taariikh nololeedka Xaaji Maxamed Goobtoon buuga title-kiisu waxa waa agoonkii cabsida ee badugsaday aniga ma ahi qoraaga buuga qora laakiin buuga waxa qoray Aabay Cabdi Xaaji Goobtoon oo horaantii sanadkan ku geeriyooday magaalada Muqdisho waxyaabaha igu dhaliyay inaan buugan soo saaro waxa weeye wuxuu ka hadlayaa ereyga agoonnimada iyo dhibaatada ay leedahay markuu agoomoodo ama hooyada ama aabaha uu waayo anigu sanadkan waxaan soo saaray buugayga aan magaciisu yahay baroorta orgiga ka weyn kaasoo aan kaga hadlayo tahriibka runtii waa markii ugu horeysay imaado magaalada Muqdisho waxaanan lama filaawan bay igu noqotay oo wax wanaagsan ayaan kala kulmay waxaan kala kulmay dad badan oo bartay iyo xiriir wanaagsan oo ka kala yimaaday gobolada marka runtii aad iyo aad bay faa'iido ugu ahay qof ma jira habibkiisa jecel inuu ma faqayto laakiin baatala soo looma baneeyay guurka labaad sababtoo looma baneeyay yaa dumar haddaan nahay sababtii loo baneeyay hadday caddaato ay timaado inaan hor istaagno maaha arrinta waxay ku haystaan oo khayr ama midigta ilaahay ka saaro آمين تسوي العمل.